madaxweyne waxa ka codsanaya wadooyinka inaan u furto dhalinyarada kumanaan dhalinyaro oo wax soo bartay shahaadooyin haystaan oo shaqo la'aan jirto madaxweyne si cadaalad ah dhalinyarada shaqo ina u siisaa ka codsanayna madaxweyne magaga inka bilow magacay walba dheeray Mukhtaar Xasan Cali Mursal oo ka nool magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya xalay waxa magaalada Muqdisho ka dhacday doorasho taariikhi ah oo ilaa wareegii saddexaad la isla aaday waxaana ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynihii 10aad ee dalka horeyna u soo ahaa madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya saakay waxaan ka soo dhaxalayaa bartamaha magaalada Muqdisho wadada gaar ahaan Maka al-Mukarrama waxaan kula kulmay halkan qaybaha kala duwan ee bulshada dhalinyaro bajaajta ee ku shaqeysta gaadiidka bajaajta loo yaqaano odayaal macallimiin siyaasiyiin iyo dad kala duwan kuwaasoo ka falcelinaya doorashadii xalay dhacday iyo dareenkooda ku aadan isbeddelka waddanka ka dhacay dadka ayaa waxa ay madaxweynaha ugu horeyn ugu hambaleeyeen guushiisa taariikhiga ah marka labaad uu hantay in uu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya dalka mar labaadna waxay u direen talooyin iyo fariimo ku aadan oo ay isleeyihiin madaxweynaha Alle haddii uu qaato wax badan ayuu markaasi ku guuleysan karaa inuu qabto aad u maasantahay magacii waa Ismaaciil doorashadii xalay runtii waxa ay doorasho taariikhi ah waxa uu habaleenay madaxweynaha cusub waxa leeyahay Alle xilka uu fududeeyo horta xildhibaanada qaranka xalay waxay sameeyeen kuul taariikhi ah waxaan u heleen shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekhna waxa isleeyahay waa oday Soomaaliyeed oo dalkan wax badan u soo qabtay waxaan isdhigi doonaa insha Allah waa ku guuleysan doonaa halaha u hartay insha Allah walaal soo dhaw magacaaga igu bilow magacaygu waa Daarib Bashir Ahmed waya daahir sidee baad u aragtaa guusha madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo doorashadii guud ahaan dalka ka dhacday ma sha Allah aad ugu faraxsanahay doorashada dalka dhacday waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed sida quruxda badan ee samirka iyo dulqaadka badan ay u muujiyeen khaasatan aniga ahaan waxaan aad u taageerayo oo soo dhaweynayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waliba 4 saac ka hor ah baliyadiisa aan profilkeega ku shaaciyay ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagay asoo waliba aan soo bixin aniga aan u sii hambaliyay balay hor dhac aan siiyay kuma dheer fanax ma sha Allah waan soo dhaweynayaa isbeddelka waddanka dhacay si weyn ma soo dhaweynayaa waxaan u hambaleynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay xilka uu qaaday inuu ilaahay garab galo si wanaagsan oo wacan ilaahayna arinta uu qaaday ugu fududeeyo doorashadii xalay dhacday waxay ahayd doorasho xalaal ah oo hufan oo si wanaagsan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waa hambalyeena waxaan ku daraa anagu waa dulmanaha shacab hadana dhibaataan qabnaa wadooyinka waa naga xiran yihiin hay markana waxaan la joogaa mid kamida dadka shacabka ah ee maantay aan kula kulmay bartamaha magaalada Muqdisho walaal marka ugu horeysa magacaaga iigu bilow waxaad iigu xijisaa sidee baad u aragtaa wixii xalay dalka ka dhacay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabduqaadir Warsame Cabdulle doorashadii xalay dhacday waxaan ku tilmaami karaa waa cusub oo Soomaaliya u bariyay baan ku tilmaami karaa Soomaaliya saad ogtahay ba 5 sano iyo xogaagii la soo dhaafay walwal badan baa jiray oo ku saabsan dhinaca doorashada maanta waxa aad Soomaalidu ay qalbigooda ay ka saartay inayna ka baqatin qabin hadii xilligu dhamaado in doorasho dhacdo waxa kaliya oo aysanaba waa doorashada markana waxaan la joogaa ninkan dhalinyarada ah ee bajaajleyda waxay ka mid yihiin dhalinyarada dabcan shaqooyinka ugu badan bulshada u haaya dhinaca gaadiidka caqabado badan bay qabaan qaarkood horey baan oo la hadalnay waxay madaxweynaha dabcan ka codsanayaan in waxyaabo badan oo iyaga hadda ku adag loo fududeeyo bal soo dhawlaale ka waran si aragta doorashada xalay dhacday ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay waqti badan baa la sugayay 5 sano iyo dheeraad bayna ay gaadhay in la sugo doorashadii ilaahay mahadiis xalay haduu ilaahay noo fududeeyay runtii qof walba qalbigiisa waxa ku jira ilaahay baa og laakiin anaga shacab Soomaaliyeed baan nahay qaasatan bajaajli hadaan nahay waxa muhiimadeen ay tahay waddanka inuu nabadgeliyo inoo helo wallahi iideedan faladaani in dadka insha Allah dadkana iidan taageera horta lan kumid ah bahi iideedan han dhawaayaan ilaahay lankii dalka iyo diintii iyo insha Allah dadka walan anfahay ilaahay ka weela yelaha iideedan han dhawaay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo uu kala doorday insha Allah aad iyo aad u maadsantay
shukran si kastaba ha ahaatee aragtida dadweynaha ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa doorashadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waxaana looga fadhiyaa dabcan inuu wax ka qabto arrimo ay ka mid yihiin ammaanka dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo sidoo kale cadaaladda dadweynaha ayaa madaxweynaha rajo aad u badan ka qaba maadaama uu yahay mas'uul waaye araga oo horay xilkan muddo 5 sano ku dhow soo hogaaminaya dalka maxamuud soo faysana warbaahinta qaranka magaalada muqdisho